السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa laga yaabaa inaad ka warqabto waxtarka caafimaad ee uu leeyahay geedka kurkumku ama geedka aynu u naqaano huruudu iyo siyaabaha kala duwan ee loo isticmaalaba. haddaba arrin kale ayaa ah in koob biyo diirana iyo malqacad kurkuma aad isku darto oo aad cabto subaxda hore. cabitaanka noocani wuxuu aad u wanaajiyaa caloosha isagoo meesha ka saara cilladaha ku yimaada dhinaca caloosha sida dibirada iyo gaaska caloosha. dhinaca kalena cabitaankani wuxuu aad u xakameeyaa khatarta dhiigkarka waxaanu la dagaalamaa xanuunka dadka waaweyn ku keena asaasaqa ee Alzheimer. dhinaca kalena cabitaanka noocani wuxuu aad u qurxiyaa muuqaalka sare ee jidhka waxaanu isku dheelitiraa sonkorta jidhka waxaana lagula taliyaa dadka waaweyn inay isticmaalaan cabitaanka noocana isagoo aad ugu fiican meelaha kala goysyada ah ee jidhka gaar ahaan markay dadku waaweynaadaan. qaabka loo diyaarinayaana waa in malqacad kurkuma oo aad budo ka dhigtay aad ku darto koob biyo diirana kadibna aad xoog isugu walaaqdo oo aad cabto subaxda hore quraacda ka hor. dhinaca kalena dumarka uur kale waxaa lagula taliyaa inaanay isticmaalin cabitaanka noocana. ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama iyo dembi dhaaf. aad baad u mahadsantihiin. وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل